horta dalqadaha iyo furitaanku wax lagu ciyaaro maaha wala tattakhiduu aayaatillahi huzwan buu ilaahay yidhi ilaahay aayadihiisa iyo axkaamta diintiisa jees ha ka dhiganina wax lagu ciyaaro maaha ninka markuu mas-uuliyadda guriga waxa loogu dhiibayo dalqadaha waa inuu degan yahay waa inuu dulqaad leeyahay waa inuu kafiirsi leeyahay waa inuusan degdegin haddii uu furitaan ku dhawaaqo miyirkiisuna maankiisuna markaa joogo furitaanku waa dhacayaa laakiin maxaa dhacaya hadduu 3 yidhaahdo ama 2 yidhaahdo 3du ma israacaan 2duse ma israacaan mise markiiba hal uma dhacaysa masaladaa way masalada culimmadu ay ku kala aragti bedelan yihiin siday u badan yihiin waxay qabaan 3 haddii la yidhaahdo 3du way israacayaan 2 haddii la yidhahdana 2du way wada tegayaan saasay u badan yihiin culimmada qaar ka midana waxay qabaan meehee 3 hadduu yidhaahdo hal unbaa dhacaysa 2 hadduu yidhaahdana mid unbaa dhacaysa ta kale waxay dhacaysaa uun markuu taa ka soo noqdo hadduu furitaan kala sameeyey ta kala dhici kartaa ta saddexaadna mar madax bannaan bay dhici karaysa dalqaduhu isma raacaan culimmada qaar baa qaba qaarna waxay qabaan way israacaan oo masale khilaafkeedu caan yahay sidaas daraaddeed khalad weeye ninku inuu dalqadaha israaciyo dalaaqa iyo furitaanku labu u qaybsama midna sunnadu waafaqsan yahay midna wuu khilaafsan yahay bidci baa la dhahaa dalaaqa bidciga waxaa ka mid ah sharciyada khilaafsan haweeneyda iyadoo caado qabta in la furo waa khalad ayada oo daahirsatay laakiin daahirsiga ay daahirsatay loogu galmoodo ninkeedii is arkeen in lagu furana waa khalad furitaanka saxda ah waa in ayadoo daahir ah oo intay isdaahirisay aan la arkin oon loo galmoonin in la furo waaye markaa ciddadaa u gaabanaysa waxaa ka mid a dalqadaha markuu ninku naagta xaaska furayo waa inuusan 3na dhihin 2na dhihin hal dalqada ku furo lacalla allah yuxdiu bacda dalika amraa jaanis baa lagu siiyey mar fur haddaad sidaa ku dayso way furmi ood ciddada kaga baxdo haddii aad isbeddesho oo xaalad soo gorodhana waxaa kugu filan waan soo ceshaday meel fog ka raadin maysid mar labaad baa timid haddana dalqad mar saddexaad dalqad 3 dalqadood waxaa loo bixiyey calashaanisi in jaanis la siiyo guriga iyo reerka sidaas daraaddeed dalqadaha in la israaciyo waa khalad waxay khilaafsan tahay hadyigii nebiga sala allahu calayh waalihi wasalam ma israacayaan hadduu ninku rido 2 iyo 3 uu dhaho oo masale khilaafiya weeye waxaase xoog badan inta kolley aan garanayo madhabka dhahaya dalqaduhu isma raacaan sidaas daraaddeed hadduu 3 yidhaahdo hal dalqad baa laga soo qaadaya hadduu 2 yidhaahdo hal dalqad baa laga soo qaadaya markiiba hal dalqad baa dhacaysa wallahu aclam gabadhani waxay leedahay ninkayga aan kala tagnay wuxuu ugu furay 2 dalaaqood reerka iyagii baa soo dhexgalo inay isku kaayi celiyaan bay rabeen ninkii markii lala hadlay halkii rajactu laga filayey yiri tii 3aadna waa ugu daray tii 3aadna way ku furanta muddo kadib ayuu leeyahay oo dib uga shallaayo reerkii ilmihii waan rabaa ayuu leeyahay bay gabadhu leedahay ciddadiina way dhammaatay maxaa xal ah masaladani waa 2 qaybood oo marna waa masalatu talaaq الثلاث marna waa ciddada dhammaatay masalatu talaaq الثلاث 3 dalqadood ma israacaan weeye masalada nuxurkeedoo hal ciddad ma isugu tagaan masalo khilaaf badan ka jira weeye muddo dheerna soo jiitamay marar badan saan sheegnay aniga asaxul qowleyn ee naska u dhow hal dalqadun baa dhacaysa markaas 2 dalqadood isku ciddo ma galaan hadduu 2 yiri iyo hadduu 3 yiri iyo hadduu 1 yiri oo mid labaad ka daba tuuray oo mid saxa ka daba geeyo hal dalqadun bay ciddadaa noqon sidaa haddii la yidhaahdo xilligaas dalqad dambe uu ka daba tuuray meel lama laha tii hore hadduu 2 yirina halun bay noqon kadib ciddadii hadday dhammaatay guur iyo nikaax cusub baa u furan hal dalqadii way dhacday
dee labuu igu furaydu hadday isku mar ahaydna halkaa unbaa dhacday hadday mid hore oo jirtay ay ku darayso oo isku noqdeen mid labaadna ay taa noqotana hal dalqadoo hadha isku qabayaan wixii baaqi u ahaa bay isku qabayaan laakiin nikaax cusub oo markhaati iyo meher leh bay samayn karaan su-aasha hore ee ah ninkaygii wuu i furay 3 dalqadood buu i furay qiil ma la ii helayaa waxaa la isweydiinayaa 3 dalqadood ma hal mar buu ku wada dhawaaqay oo hal mar bay ahayd mise wakhtiyo kala tagsan bay ahayd hadday mutafariq ahayd oo wakhtiyo kala tagsan ay ahayd 3 jeeroo isxigana uu furay haweeneyda qiil looma hayo ilaa nin kale ay soo guursato marka iyadaa laga rabaa 3 dalqadood qaabkay ahayd haddiise hal mar uu yidhaahdo 3 dalqadood baan ku furay oo wada socda waa masalo khilaafiyo culimmadu ay isku khilaafeen culimmada qeybta muxaqiqiinta ahina waxay leeyihiin hal dalqaa laga soo qaadayaa hal dalqo ayaa laga soo qaadayaa waa haddii hal mar ama hal fadhi uu ku yidhaahdo 3 dalqadood baan ku furay haddayse mutafariq tahay oo sida soomaalidu u badan tahay inta badan waataan tilmaamaya cadhadan inagu badan dalqadii iyo wixii ugu dambeeyey baa la soo qadimayaa waan ku furay haddana waan ku soo ceshaday ayaamaa la wada joogi waan ku furay 3du markay dhammaato iyadii baa qiil raadinayso waxay odhanaysaa anaa mindi u qaatay isna wuxuu odhanayaa carruur badan bay haysaa haddii 3daa dalqadood ay sidaa ku dhacaan ama carruur badan ha kuu hayso ama mindi ha kuu qaadato ilaa nin kale ay soo guursato haweenaydaasi uma rabaan waliba ninkaa kalena iskii intuu u giiso iskii u furo oo maxdalan loo masaladani waa masalada la yidhaahdo dalqaduhu ma israacaan mise isma raacaan culimmada madaahibta badankood waxay qabaan 4 imaam ka mid yihiin in ay dalqaduhu israacayaan oo haddaad 2 tidhaahdo 2du tegayaan haddaad 3 tidhahdana 3du israacayaan laakiin طaa'ifa min ahli اlcilmi oo saxaabo badan ka mid yihiin baa waxay qabaan dalqaduhu isma raacaane markiiba hal unbaa dhacda haddaad 3 dhahdo iyo haddaad 100 dhahdo iyo haddaad 2 dhahdo iyo haddaad hal dhahdoba iyo haddaadan dalqadba sheegina oo tidhahdo waan ku furay un hal dalqadun bay noqoni ta kale waxay dhici kartaa mar kale ta saddexaadna waxay dhici kartaa mar saddexaad dalqaduhu isma raacaan daahirka qur-aanka sida laga qaadanayo waa leanna qur-aanku see buu u cabiray qur-aanku wuxuu yidhi alطalaaqu marataan alطalaaq asha ku jirta waa cahdiya waxaa laga hadlayaa furitaankii aayaduhu ka soo warramayeenoo xaaska lagu noqon karo markaad furto aad soo ceshan karto waa 2 goor alطalaaqu marataan lama dhihin alطalaaqu dalqataan lama dhihin dalaaqu waa 2 dalqa lama dhihin waxa la yidhi 2 goor waa soo ma kala duwana ya haddaan ku idhaahdo 2 goor tasbiixso maxaan kaa rabaa inaad tidhaahdo subxaana allah subxaan allah ka warran haddaad tidhaahdo subxaana allahi maratayn war 2 goor subxaana allah dheh baan ku markaasaad tidhi subxaana allah 2 goor amarkii miyaad qaadatay maya maxaa lagaa rabay mara bacda mara lagaa rabaa salaadda markaynu ka baxno 33 goor soo lama dhihin subxana allah dhadhah 33 goorna alxamdu lilah 33 goor allahu akbar haddaan sooba gaabsada ka warroo dhaho subxaana allah 33 khalaas alxamdu lilah 33 ya allahu akbar 33 ma saasaa saxa maya maxaa la rabaa mara bacda mara 30 ka gaadhsii saas daraaddeed alطalaaqu marataan
furitaanka dumarka lagu noqon karo waa marra bacda marra mar waa inay dhacdo mar kale haddana dhacdo daahirka qur-aanku waa sidaa xadiiska nabiguna sal alla lay wasalam macnahaasay faa'iideyno waxaa ka mid a xadiidka cabdillahi ibni cabbaas radia allahu tacaala canhuma ee uu leeyahay kana aطalaaqu cala cahdi rasuli llahi sal lla lay slam waabi bakrin wa sanatayni min khilaafati cumar furitaanku wuxuu ahaan jiray wakhtigii nebiga iyo abubakar wakhtigiisi iyo cumar khilaafadiisii labadii sane u horraysay furitaanku wuxuu ahaan jiray 3 hadduu ninku dhaho in hal dalqada ay noqoto xilligii cumar 2 sano markii lasoo dhaafay khilaafadiisii ayay dadku marka furitaankii badiyeen 3 dalqadood 3 aan kugu furay 3 aan kugu furay war badan buu noqday markaasuu cumar wuxuu yidhi war dadkii waxay ka fiirsan jireen bay ku degdegeene sooma fiicnaan lahayn inaan ku socodsiino 3daba qaab ganaaxa wey marka waa ijtihaad markaasuu cumar ku socodsiiyey wuxuu yidhi ninkii 3 reerkiisa ku fura adeer ka wada dhammaatay buu muxuu rabaa marka cumar wuxuu rabaa inuu daahiradan soo korodhay ee 3 dalqadood israacintooda la badiyey yuu rabaa inuu joojiyo dad ka hor istaago ijtihaadaadkiisii bayna ka mid tahay halkaasaa marka ku raaceen aymo badanay ku raaceen almuhim hadday xilligii nebiga iyo xilligii abubakar iyo xilligii cumar qaybtiisii hore 3 dalqadood laga soo qaadi jiray hal dalqad ah taas ayaa raajix xoog badan tan kalena xilliyada qaarkood aymadu waa ku ijtihaadi karaan masaladu waa mas'ala khilaafiya sida markaynu raahno ninkii reerkiisa mar 2 dalqadood ku furay oo soo ceshaday oo haddana mid ku furay oo soo ceshaday wax qiila ma u haysan masaladii saan hadda u taqriirinay Soomaaliya dalqadu isma raacaan isma raacaan haddii la yidhaahdo markii uu 2 israaciyey baa hal ahayd wabitaali hal baa usii laaban soo ma marka wuu soo ceshan karaa halkaa ha ku mitido mas'aladaasi sidaa markaan u taqriirinayno waa sida daliil ahaan markaan fiirino nala xoog badan aqwaasha cilmiga laakiin sidaasi waji waaxida uma go'no wali waa mas'ala khilaafiya madaahibtii ayma badanna waxay qabaan dhanka kale haddii nin culimada ka mid ah la xoog badato ama culimadii shaafiiciyada ama culimadeennii horeba uu ku yidhaahdo adeer way kaa dhammaatay nin lafca toobin ku haya ma aha waa nin madhab looga horreeyo culimo badan mareen sheegayo waay masaladu marka saas khilaafiya u tahay naam talaaqa 3 dalqadood ah markii ay kala socoto wax isku khilaafay horta ma jiraanba markii ay kala socdaan dalqado naagtii hal mar hal dalqa lagu furay dalqad kale hadana lagu furay mid saddexaad lagu furay marka koobaad horta wax u horay lama arko marka saddexaadna cid isku khilaaftay dalqada kala socdaahay inay dhacayaan cid isku khilaaftay ma jirto hadda waxa la helayaa 5 iyo 6 jeer naaga la furay oo wali raggii u jooga way leeyihiin culumada ugu soo celisay maxaa arin u taala culumada hadii arintaas u jirto aysan ku been abuuran hadii ku been abuurtaan iyaga dambiga iskale arin culus weeye dalqaduhu markay saddexdoodu ay isla socdaan oo dalaaqu 3 ay yihiin 3 dalqadood oo isla socota mas'aladaas 3 madhaba ku jirta la yiraahdaa qolo waxay leeyihiin wax dalqadaha oo dhacaya lama arko hadii saddexdoodu isla socdaan daahiriyada qolada la yiraahdaa sidaas qabta qolna waxay yiraahdeen 3 dalqadood markii la rido hal mid aha dhacaysa masaladaas xukumkeeda raajix ah waxa weeye 3 dalqadood markii la rido inay saddexdoodu wada dhacayaan xukunkeeda raajixeedu waa kaas ijmaaca saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa ku guntamay zamankii sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ijmaacaas waxa daraf ka ahay 3 khulafaa ar-raashidiinta kamida waa sayyid Umar oo arintaas horjoog u ahaa iyo sayyid Ali iyo sayyid Uthman saxaabadii kale oo waaweyneed oo badriyiin leh oo qeyrkood lehna waa wada joogeen xaafid ibn Hajar al-Asqalani xadiiska Bukhariga markuu sharxayo 3 dalqadood kitaabun nikaaxiyan ku tagi doonaa hadii Ilaahay yiraahdee wuxuu leeyahay walam yu'had ahad khalafa fi dhalika hal qof oo khilaafay oo saxaabadii iyo taabiciintii kamid ah sayyid Umar xukumkaas ku khilaafay uusan jirin sayyid Umar ana taqriiriyay
oo maaragtay ijmaacaas maaragtay xukumkeeda riday adilada marka loo laabto xukumka aan ta'wiilka lahayn ijmaac uu noqonayaa aayadaha quraanka iyo xadiista macaanidoodii aymadii looga dambeeyay kuwa ugu waaweynay weeye sayyid Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wuxuu ka mid yahay khulafaa ur-raashidiintii nabigu yiri calayhi salaatu wa salaam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وحكمت يهي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومدى سيقوني وكلا دردارمي إن يكون ضيضان وأمرين النبي عليه الصلاة والسلام إجماع مركة خلفاء الراشدين تي هي صحابة كلا أي قوة جيران وزمن كي سيد عمرها هل كاسا مسألة سلك الله ديكي مسألة هلكاس أصلك الله دقي حديث كصحيح المسلم ضلاق الثلاث واحدة وما ركتي ان أي ماذا قبطة إن سدح هذا القضاء إسراع أي دليل شدان ان تفاسير بدن وليه احتمالات بدن وحديث كسمعنيه سوليه هي وتكفيرين كرتان شرح إمام النووي وين صحيح المسلم وكفيرين كرتان شرح وين وحافظ ابن حجر العسقلاني وليه فتح الباري وكفيرين كرتان محوها هاي انت وجه وكجرته وتأويل كو إيمان كرته وأيمدو أي كو فصيريان marka masaladaas xukumkeedu halkaas uu salka dhigay iyadoo sidaas u takhriirsan oo xukumkeedu sidaa uu yahay ayaa zamankan hadda maanta marka la fiiriyo dhaqanka dadku qolna waxay qaadatay dalqadaha hal xabba oo dhici maayaan oo waxay ku xisaabtameen dalqadiina aan mid dhicin qolna waxay leeyihiin labadoodii saddexdoodii hal mid aha dhacaysa dadka markii mas'alada loo jawaabay mas'aladu haday mas'ala khilaafiya tahay wajka raajixa umada loo sheegaa maxaa yeelay iyada ah dariiqul aslam iyada ah marka mas'aladaas xukumkeedu asaaskeedu meesha ugu weyn oo salka ay ku haysaay waxa weeye in ijmaaci saxaabadu uu ku guntamay iyagoo nooga aqoon badan nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnadiisi iyo quraanka kariimka macnihiisi iyo habdhaqankii ummadda islaamka intii zamankii nabigu jooga calayhi salaatu wasalaam iyagoo nooga aqoon badan ayaa ijmaacoodu ku guntamay xukumkaas marka ninkii saddex dalqadood maaragtay ay carabkiisa soo martay oo naagtiisa ku furay saddexdiiba waa uga furantay waxa fiican marka inuu gogol oo xalaal ku seexan jiray inuu xaraam ku seexan dadkuna sidoodaba waxa ay afka ka sheegaan wax ma xalaaleeyaan xukumka sharciga islaamka ama wax xalaaleeya ama wax xarima waxa wanaagsan marka inaadan isfasaadin oo dhibaato isu keenin ilaahi subhanahu wa ta'ala qof walba amalkiisa asaga u xisaabaya gurigaaga dhaqankiisa adaa lagu xisaabaya adaa maaragta qoorta uga xiran waxa fiican marka in si gooniya masaladaas looga digtoonaado hadii kala mujtamaci inuu fasaado ayaa iimaanaysa ilaahan ka magan galnay subhanahu wa ta'ala